shir jaraa'id oo galabta ku qabtay isla goobtii hore uu ka dhacay shirkii urur Shawan suldaanka guud ee beesha biciide Suldaan Siciid Xaaji Yuusuf Ducaale ayaa waxa uu kaga dhawaaqay shirka urur Shatu kaas oo dhici doona 1 January ee 2020 waxaana shirkaasi urur laba isugu iman doona beelaha habar jeclo bari waa sida uu suldaanku u dhigay shirkan ayaa waxa qaban qabadiisa iyo gogol xaarkiisa leh beeshii hore u qabatay shirkii urur Shawan waxaana hadaladiisii kamid ahaa maanta oo ay bishu tahay 30 bishii 11aad ee sanadka 2019 waxaanu shir jaraa'id ku qabanaynaa goobihii aanu joognay ee aanu 28 bisha ka sii day ku soo xidhnay shirkii ururshe midiyaha madaxa bannaan dhammaan ummadda reer Somaliland waxaanu u soo jeedinaynaa salaan aad iyo aad u sharaf badan iyo bogaadin markii aanu shirka xidhnay ururshe koow ee ergo xoog leh ka soo qayb gashay habar jeclo bari waxa la tashi dabadeed la go'aansaday inaanu ku dhawaaqno shir labaad oo magaciisu yahay ururshe 2 laguna qaban doono goobtii hore ee dooxada Laasgalool gogashana ay yeelan doonto beesha Axmed Faarax Biciide shirkaasi wuxuu ku beegan yahay 1 January ee 2020 1 January ayuu ku beegan yahay ergada ka soo qayb gali doonta ee daafaca caalamka joogta cid kasta oo danaysa cidda nabadgelyada jecel cidda midnimada jecel cidda wada tashiga jecel dhammaantood waxaanu u soo jeedinaynaa inay shirkaas oo lagu ururinayo oo lagu lafagurayo dadkii ka soo qayb galay si ay ugu midoobaan nabad iyo talo isku mid ah uga soo wada saaraan ururshe 2 ayaanu ugu baaqaynaa taladuna waa sidaasaanu go'aanka iyagu uu maanta yahay shirka jaraa'idna sidaasaanu u qabanay oo ku soo oo ku gurfaynaya go'aamadii shirkii ee nabadda laga soo saaray isku xidhka beelaha gobolka iyo habar jeclo bari siday ugu midoobaan oo u soo wada saaraan arrin nabadeed arrin tashi arrin nabadeed iyo arrin wada tashi u soo saaraan intaa weeye dadka ku midoobaya ee imanaya ee ka soo qayb galaya horumarka nabadda gobolka beelaha ku midoobay ee ka soo wada qayb galay shirkii ee ka soo saaray kuwa weeye arrinta loo qabanaya shirka insha Allah bidmillaahi kariina ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noqdo shirkii najaxa ee wax lagu farxo soo saara ee dalka iyo dadkaba wanaag iyo horumar u horseeda sidii kii horeba ahaa wabillahi tawfiiq Farax Cabdi Nuur Farax Burburte Home Cable TV degmada Garadag